habeen ay ciid tahay ayuu ninkan soo galay dukaan lagu iibiyo dahabka. waxa uu heliyay xaaskiisa, waxaana gadaashiisa taagan hooyadii oo sida wiil yar oo u dhalay. xaaskiisii ayaa qaadatay dahab fara badan si loogu iibiyo. ninkeedii ayaa ku yiri ninkii wax iibinayay, waa imisa xisaabtaadu? dukaanlihii ayaa yiri, waa 20,100 riyaal. wuxuu fiiriyay markiiba miisaanka, wuxuuna arkay 20,000 oo kaliya. wuxuu dukaanlihii weydiiyay halkay ka timid 100 dheeraadka ah. dukaanlihii ayaa ku yiri, hooyada ayaa qaadatay faraanti. kan faraantiga ayuu hooyadii ku yiri, wuxuuna u celiyay dukaanlihii, wuxuuna u raaciyay, cajuuso adoo kala ah ma ahan inay xirto dahab. hooyadii way oyday markii ay hadalkaasi maqashay, waxayna aaday banaanka. xaaskiisii ayaa ku tiri, maxaad samaysay? soo ma ogid inay ku soo xambaartay? waa hooyada oo wali jaariyad kuwa. kadib markuu iibiyay dahabkii ayuu soo aaday hooyadii oo gaariga saaran, wuxuuna ku yiri, hoo faraantiga haddaad rabto. hooyadii ayaa ku tiri, maya wallaahi ma rabo faraanti, waxaan se rabaa inaan u farxo sida xaaskaaga iyo dadka kale. waxaad dishay rajadaydii ee allaha ku dhowro hooyo. 6 bilood kadib markii ay arrintaasi dhacday, waxaa guriga la keenay dawooyin waxyeelayn kara caafimaadka wiilkeeda. hooyadii ayaana u soo gashay iyadoo ka walwalaysa caafimaadkiisa una muujinaysa jacayl. waxayna daaqada ka tuurtay dawooyinkii. wuxuu u qayliyay sidii qof waalan, wuxuuna guriga degdeg uga saaray hooyadii iyadoo ka baqatay inuu u gacan qaado. way soo baxday hooyadii iyadoo leh, Alla ku gargaar wiilkaygiiyo. waxaa go'ay xiriirkii u dhaxeeyay wiilka iyo hooyadii in muddo ah. wiilkii waxa uu soo galay xanuun saameeyay jirkiisa oo isbitaal la dhigay. markii uu ka soo baxay isbitaalka kama soo reen xaaladiisa, waxaana u sii dheereed fikir iyo in maalinba maalinta ka dambaysa ay xaaladiisu sii xumaanaysay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu arkay wadaad ka hadlaya telefishinka. wadaadku wuxuu ka hadlayaa waalidka oo baari loo noqdo iyo qaraabada oo la xiriiriyo. dhageysi dheer kadib wuxuu ogaaday in musiibada haleeshay ay tahay dhibaatadii uu u geystay hooyadii. wuxuu bilaabay inuu baadi goobo hooyadii ilaa ugu dambeyn uu ka soo helo. wuxuu ugu tagay guri burbursan oo aad u yar, waxayna cuntaa waxay dadku ku sadaqaystaan. wuxuu qabsaday lugaha hooyadii isagoo waliba aad u ooyayo ilaa ay ka cafisay. markii uu sameeyay baarinimadaas, wuxuu ka caafimaaday xanuun oo dhan, waxaana u soo laabatay noloshiisii hore. wuxuuna hooyadii u hadiyeeyay hantidiisii oo dhan si ay uga raali noqoto una cafiso.